muuqaalkiisu waa mid qof kasta uu yaqaano, laakiin maanta ma aqoon kartid maxaa yeelay waxaa isbedelay jirkiisa kadib tacaddi ay u geysatay dowlad Yurub ah. Magaciisu waa Xuseen Elji. Waxa uu ahaa shakhsi caan ka ah baraha bulshada, hase yeeshee in muddo ah la waayay muuqiisa. Haddaba maxaa ku dhacay? Xuseen Elji waxa uu sheegay in muddo 6 bil ah ay haysteen askarta dowladda Netherland. Maxay u geysteen, maxayse tahay sababta jirkiisa biraha loo geliyay? Sheekadan ayaan ku eegi doonaa si fariintiisa wiilkan ay meel dheer u gaarto, muuqaalkana sii faafi. Xuseen waa mid ka mid ah dhalinyaradii u hayaamay Yurubta Galbeed, gaar ahaan dalka Netherland, markii ay u adkeysan waayeen foodada Soomaaliya ee 30 sano ee la soo dhaafay. Waxa uu nolol u raadsaday dalalka Yurub. Markii uu deegaansaday muddo kadib, waxa uu bilaabay in uu wacyigeliyo dadkii Soomaaliyeed isaga oo sameeyay baro bulsho oo uu dhalinyarada kula wadaago dhiirigelinta. Si kastaba ha ahaatee, Xuseen Elji, wiilkan Soomaaliyeed, waxa uu noqday mid codkiisa uu meel dheer gaaro, isla markaana caan ka dhex noqday baraha bulshada. Iyadoo sidaa ay tahay, ayaa la waayay in muddo ah oo uu ka maqnaa baraha bulshada iyo halkii uu wax ku soo gudbin jiray. Ma jirin qof la socday intaas, xataa waalidkiisa sida uu sheegay. Dad badan ayaa la yaabay markii ay arkeen muuqaalkiisa oo isbedelay muddo kadib, jirkiisa oo haaro badan ay ka muuqato, iyo isagoo u muuqda qof jirdil iyo tacaddi weyn loo geystay. Fariimo muuqaalo leh oo uu soo duubay ayaa ku faafay baraha bulshada dhexdeeda, iyadoo la weysnaa muddo dheer. Muuqaalkiisa ayaana laga akhrisan karaa wax kasta oo dhibaato ah oo soo gaaray wiilkan Soomaaliyeed. Waxa uu ka sheekeeyay dhibaatada uu la kulmay, isaga oo ka hadlaya. Waxa uu yiri, dowladda Netherland ayaa qabatay oo i xirtay aniga oo aanan waxba ogeyn. Ma aqoon waxa laygu haystay, laakiin markiiba waxa lay geystay wax aanan sheegi karin runtii. Meel kasta oo jirkayga ka mid ah waxa la geliyay biro, xataa gudaha jirkayga. Haddii aan idin tuso dhagahayga, maar ayaa lagu shubay, macal carabkayga ilaa wadnaha hore iyo gadaalba ay biro geliyeen, ayuu yiri Xuseen Elji. Waxa uu sheegay in ay ahayd inay dilaan oo ay nafta dhaafiyaan, iyaga oo ka dhuumanaya sharciga. Dhimasho ayay ila rabeen, ayuu yiri. Biraha gudaha jirkiisa la geliyay ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa basaaso qofka, oo marka loo geliyo ay dowladdu la socon karto xaalad kasta oo uu ku sugan yahay. Waxay dhageysan karaan hadalka oo uu ku hadlayo iyo midka lagula hadlo. Waxa ay sidoo kale la soconayaan dhaqdhaqaaq kasta oo uu sameeyo iyo goobta uu tago. Ilaa iyo imika waan la yaabanahay waxa ay ii soo hujuumayaan dadkan. Maxaan ka galabsaday? Maxaase laygu maagayaa? Ayuu isweydiiyey Xuseen Elji. Waxa uu yiri, isaga oo qiyaasaya sababta lagu haysto, waxaan u malaynayaa in ay iiga shakiyeen argagixiso, laakiin markii ay iga waayeen in ay ideeyaan ayay ka baqeen. Xuseen Elji, inta uu muuqaalada ku soo gudbin jiray baraha bulshada, waxa uu caan ku ahaa in uu adeegsado aayadaha Qur'aanka Kariimka oo uu u soo daliishan jiray. Mararka qaarna uu ku guwaabin jiray dhalinyarada, taas oo uu aaminsan yahay in ay tahay sababta sidan ka dambaysa. Hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, halkaas oo ehelkiisu ay ku hayaan. Waa wax aanan horey loo arag waxa ku dhacay wiilkan Soomaaliyeed, hase yeeshee waxa uu fariin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uuna ka codsaday in uu madaxweynuhu ka jawaabo dhibaatada loo geystay, oo uu sheegay in ay dhimasho ku sababi karto. Bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare.